wafdi ka socda dawladda Turkiga ayaa maanta gaaray magaalada Garowe iyagoo kulamo la qaatay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas sidoo faafinta warkani inoogu sheegay wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Xayir. wafdi oo hogaaminaya safiirka hore ee dawladda Turkiga u fadhiyay Soomaaliya haddana xildhibaan ka tirsan dawladda Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada Garowe caasimadda Puntland waxa uu ka soo degay garoonka Konooko uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo helinayaan xubno ka tirsan golaha xukuumadda soo dhaweyn kadib waxa uu soo gaaray xarunta madaxtooyada halkaas oo kulan kula qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas kulankaasi waxa diiradda lagu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeya Turkiga iyo dawladda Puntland waxay sidoo kale isla soo qaadeen qaabkii mashaariicda Turkigu ka wada Soomaaliya kaalin looga siin lahaa Puntland kulan dheer oo saxaafadu banaanka ka joogtay kadib waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo safiirka hore ee dawladda Turkiga u fadhiyay Soomaaliya Kamaluddin Kani Turan waxaana madaxweynaha Puntland oo hadalka ku horeeyay uu sheegay in dawladda Puntland ay ka wada hadleen wafdigan ka socda Turkiga sidii kor loogu qaadi lahaa mashaariicda Turkiga ka wada Soomaaliya iyo sidii dawladda Turkiga ay kaalin muuqato uga qaadan lahayd horumarka ka socda Puntland waxaa maanta sharaf weyn noo ah inay halkan ugu soo booqdaan wafdi culus oo ka yimid dawladda Turkiga ma aha markii horeysay labada ambassador ay noo yimaadaan markii labaad markii saddexaad Puntland ay soo booqanayaan weeye way noo yimaadeen maanta aad baan ugu faraxsanahay noo yimaadaan waxaan noogu yeeray inaan ka wada hadalno xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Puntland inaan ka wada hadalno mashaariic horumarineed iyo mid arrimaha ijtimaaciga iyo mid xagga bini'aadanimada oo ay rabaan inay ka sameeyaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo sidii ay geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna uga qayb qaadan lahaayeen dhanka kalena aanu kaga faa'iideysan lahayn mashaariicdaas iyo barnaamijka horumarineed ee ka wadaan Soomaaliya inay Puntland ka mid noqoto qayb ka mid ah ballanqaadyo badan ayay runtii sameeyeen isku xir in la sameeyo oo dhinacyo badan ah dhanka horumarka dhanka arrimaha ijtimaaciga dhanka arrimaha bini'aadanimada iyo dhanka security-ga intaba waan ku faraxsanahay wafdiga inay noo yimaadaan guul iyo khayr baan ka rajaynaynaa insha Allah iyo inay sii socoto xiriirkaasuna uu sii ambaqaado oo uu sii mira dhalo insha Allah safiirka hore ee Soomaaliya u fadhiyay dawladda Turkiga ayaa isna hadlay waxaana soo dhaweeyay wada shaqeynta ka dhaxeeya Puntland iyo Turkiga waxaana ka mahad celiyay qaabka loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda Puntland ee Garowe. Thank you very much, Mr. President. I'm very happy to be here again. I happened to be here before, visited Mr. President and presidents. Actually, I visited even the previous president, Mr. Abdurrahman Farole. I'm very happy to see my brothers here in Puntland, and we are going to talk about the issues relating with Puntland and the federal government and Puntland and Turkey and the development issues in Puntland, and inshallah we'll work together to pass these days, and then Puntland and the whole Somalia will become prosper and be the peaceful country inshallah. wafdigan uu hogaaminayay safiirka hore ee Turkiga waxa qayb ka ahaa safiirka haatan u fadhiya dawladdaasi ee wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale Cabdirasaaq Maxamed Xayir Jubaland TV Garowe.